markaana waa qaybtii labaad ee forumka waxaana la soo gaaray xilligii dadweynaha la siin lahaa fursad ah inay commentiyo ama su'aalo ku darsadaan forumka marka hore waxaan ku hormarnaa dadweynaha ka soo qaybgalay forumka wixii commentiya wixii su'aalaha ay qabaan ay soo gudbinayaan kadibna forumka panelkiisa ayaa su'aal kasta ka jawaabi doona su'aal kastana yani qofka loo wado baa ka jawaabi doona insha Allah marka gudaha aan u galno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة ومحمد عبد محمد وحن كسعودة أمل بانك وحن رباينا نفر سؤال وضو يروي ديو استدوه سؤال شكوى دوحيت هاي استاد كحونوش شاقي إن وطن كان حلي جهوري وكجري ويبن كومبتيشن أو هو بكل لغو ترتمي جري أو غلوال بأي وحنوسو كور جرين لكن ما أنت هاوشي أي سيدي كدو أنت هاي أو بانجيري أي نغو ترتمايان taasna uu muujiyay inay tahay horumar laakiin soo lama dhihi karo shalay wadankeena hubaa lagu soo guri jiray ujeedada laga lahaa waxay ahayd dhaqaalaha in lagu urursado badda in lagu dhaco waxyaalo badan in lagu sameeyo dadku inay isku dilaan hogaamiye kooxeedyo oo dana gaar laga leeyahay in lagu taageero shalay hawshidaasay aheeday soo ma dhihi karna marka kuwii shalay sidaas yeelay isla laftoodii oo istiraatiijiyadii bedeshay ayaa soo laba kacleeyay oo waxay isku dayeen minds bedeleen waxay dhaheen waxay rabaan markaa inay si kale noo dhacaan oo ummadda dhaqaalaheedii ay urursadaan oo dhaqaalihii ay ku urursadaan ay dhahaan bangiyaan idin fureynaa sidaana idin yeelaynaa waxbaa idin qabanaynaa annagoo og qaar kamida wadamada bangiska hadda furana ay qaar kamida inay ku jiraan kuwii hubka lagu soo furi jiray inay qaar kamida ay yihiin marka ma soo waa kuwa istiraatiijiyada bedeshay soo ma dhihi karno dhawaan bay ahayd 3 bilood ka hor maraan warbixin ka diyaarinayay research cilmi baaris aan ka sameynayay wadanka iyo xaaladiisa helitaanka maaliyaddu meeshay marayso marka xaqiiqatan waxyaabe 3 qodob uun baan rabaa inaan yara taabto bal hal daqiiqada waxaan ka badnay inaan dul istaago bal xaaladda helitaanka maaliyadda ee waddanku meeshay taagan tahay kadib bal maxaynu wadamada kale ka baran karnaa inaan yar dul istaago mar saddexaadkana inaan bal usoo yara noqdo su-aasha xagga caqabadaha iyo challengeska jira okay waxaan isla ognahay waddankeena marka access to finance laga hadlayo wuxuu ka hooseeyaa meesha uu mariyay 60kii warkaan ay ku yiri meesha uu mariyay 60kii oo ay joogeen banki de Roma iyo Napoli oo professor inoo sheegay iyo maanta meesha uu taagan yahay maalintaas asriisi waxaad eegi kartaan oo taa ka cabir qaadan kartaan marka la eegayo domestic credit-ka waddankeena waa waddanka ugu hooseeya Afrika waa 3% uu ka yaryahay halka wadamada deriskeena ay marayaan 30%, 20% iyo wax ka sareeya taas waxay inoo sheegaysaa sector-keena financial sector-ka markaynu run isu sheegno inuu yahay underdeveloped waynu ognahay oo ummadda firano horumarkay sameeyeen ee baaxadda weyn hadday tahay bangiyada gaarka loo leeyahay iyo hadday tahay bangiga dhexe ee Soomaaliya 10kii sano u dambeeyay baaxadda weyn ay sameeyeen imisa ayaa dadka Soomaaliyeed bangiga isticmaalo oo active haddaynu fiirino 10% way ka yaryihiin ما هي 9% كله حقيقي كم قيم وسؤال رمين سويدينه مركين كهذا hadana dhinaca ganacsiga oo hadeerto la leeyahay waxa weeye bangiyada foreign risk waa inay la macaamilaan ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn 70% ganacsatadu waxay ku kalsoon yihiin jeebkooda inay isticmaalaan waa warbixintii u dambeysay bangiga adduunka u diyaarinayay weeye 2020 ayaad ka fiirin kartaa qaybta hore waxaan markaa uga gudbayaa xaaladda waddankeena inaan isla ogaano qaybtan dhexe waxaan insha Allah ku eegayaa bangiyadu marka la eegayo waddankeena waxaan u maleynayaa marka laga yimaado East Africa oo xoogaa yaraha xidhan Africa 95% foreign banks ku joogaan Ethiopia ugu dambeysay waxaa la furayay bishana la furaya waad war haysan baan u maleynayaa hore waa la furay waa process soo socda laakiin hadda ayay baarlamankoodii waxa weeye shuruuci ay baas gareynayeen marka laba dhinac baan rabaa inaan fiirino ma Ethiopia eegna mise Kenya eegna markaynu dhinaca financialka iyo horumarka ka hadlayno Ethiopia 20 sanadood oo u dambeeyay dhaqaalaheeda iyo bangiyadeeda way xidhay
waxayna kala dagaalamaysay inaan waxa weeye competition la gelin laakiin maanta Abiy Ahmed waxa weeye wuxuu yiri waan furaya wuu baahday inuu furo waana la furaya marka waxaa la isbarbar dhig lagu yara sameeyay daraasad hadda la sameeyay 2021 waxay ku sameynaysaa bangiyada Afrika ee foreign bankisku ay joogaan iyo kuwa xadida isbarbar ku sameynaysaa qodobo badan weeye waa idin soo diri karaa waad akhri kartaan khasab ma lihin waxa weeye waa research boqol waxa weeye genuine oo sax laakiin xogaha heleen waxa cajiiba in ATM-ka investmentiga bank beeradaltiga domestic credit-ka dhammaantood mar raba figureska akhriyo intaaba waxaa ku fiican wadamada ogolaaday inay furaan bangiyada waxaana ku hooseeya oo waliba aad ugu hooseeya wadamada inta badan xadida baalki qodobkayga ugu dambeeya waxa weeye afar waxyaabood oo laga faa'iido opportunitieska foreign banks ayaan bal waqti yar ku qaadanaya kow waa qodobku sheegayay gudoomiyaha bankiga my bank waxa weeye waa wake up call tan maadaama aynu ka hooseyno 60kii meeshaynu marinay imisa sano dambe ayaynu sii gurguurinayna marka tan waxaan anigu qabaa waxay jeedal u tahay bangiyadeena awalba horumarka badan sameynayay hadda way lugeynayeen inay orod bilaabaan oo wake up call laba waxay u tahay technological transfer foreign direct investment kasta oo wadan yimaada wuxuu la yimaadaa waxaan la dhaho know how iyo technological transfer waynaga sareeyaan waxay isticmaalayaan technologiyad waxa weeye casriya waxyaabahaasi waxay noqonayaan waxyaabo Soomaalidu maadaama ay dad maskax furan tahay oo business ideas ka aad ugu fiican inaynu ka koobiyeyno lana tartano ayay keenaysaa meesha saddex new products wadankeena waa ogtiino bangiyo run bay isu sheeganaa muraabaxa lagu wareegaa soo ma 70 waxa weeye muraabaxaynu haynaa mee productyada kale marka taa waxay keenaysaa iyada laftigeeda inaynu helno way cusub iyo wadooyin cusub oo bangiyadeena ay u fakeraan meelihii kalena waxa weeye iyagana kor loo qaado waxyaabihii kale ay soo saarnaayeen marka ugu dambaysa faa'iidada ugu dambaysa waa in tartanku bato waxaan u maleynayaa anigu iga raali ahaada haddaan ku dheeraado waa soo koobaya bishan ay ugu horreysaan horta bangi lacag ka qaato hawsha iga soo martay haddaa hadda ka sheekeeyo waxa weeye waad yaabisan waa maxay waxa weeye bangigan wuxuu dareensan yahay in adigu u baahan tahay qof baahan oo soconaya tahay dantaada isaga wax iigu adkaa aan qaadan waayo waxay ahayd in qofka idamiinanaya lagu xidho inuu bangi meeshan ka furto bangi account ku leeyahay haddana waa gobolada maaha waxa weeye caasimadu waxa weeye waxaan u maleeyaa aad bay uga fiican tahay haddana la leeyahay qofkii waa inaad lacag account ku shubataa haddana la leeyahay waa inaad check book qaadataa qofkan aan wii damiintay book baad ka buuxiseen hantidiisii iyo wixiisa interview la yeelateen waayaad bankigaaga ku qasbasaa يعني هو unjustifiable conditions oo u baahan in meesha laga saaro caqabado badan way jiri karaan waxa ugu badan oo warwarka badan laga qabi karaa waxa weeye in bangiyadeena oo awalba Itaalkoodu sii yaraado faa'iidadooda ay yaraato kadibna aynu ka baqayno inay kuwa badani ay meesha ka baxaan su'aasheedu marka ugu dambaysa waxay noqonaysaa ma ku habboon tahay Soomaaliya saacadda inaynu taaganahay in bangiga la keeno su'aal badan baa laga keeni karaa سؤال بدن ملاكين إن وقتي يكون أكثر تأوج خلنا وحوي شرعيين اللي منو دمسرين دراسة أنا وأنا سميه سدح بلاد كار وحنكوس وبندق إلى 40 كودوات شرعي أو بنجية ده عندنا financial sector كودن كأيو بهين أيو أويهين credit reference بيروجي ووده كشرين competition لوجي أنشرين دوم deposit protection كي أنشرين financial resolution كي أنشرين إياه هذا أودي يجور وحشة بنكيدهنو بقول كيو بقول إسلامك بنك لكن إسلامك بنك أكتر لفت يسميه سجل لفت يسميه هرتا وين استعمالها الحمد لله لكن ما شرعي. وأنا عبد القادر خليف ما كسعود البنك لكن وحنا جبر برت دقالها وحروا الله بشي إن كهالله مدوا سؤال من نوع فكر أهانت هذا سؤال شو حاولين يا أستاذ بروفيسور يحيى sida ka dhawaajiseen oo adiga iyo gudoomiye Cabdirasaaq waxa la dhahay bangiyada raba inay wadankeena ka furtaan maalgashtaan waxay 10 jibaar ka badan yihiin ka dhaqaale badan yihiin bangiyadeena localka laakiin su'aasheedu waxay tahay hadii loo ogolaado bangiyada internationalka iyo bangiyada localka inay suuqa ku wada tartamaan iyadoo la sameynayo shuruuc xadidaysa oo aan lagu wada fasaxin haddana loo ogolaado in suuqa lagu tartamo
ma dhici kartaa inay bangiyadana localka ah ee u noqoto dhiirigelin dhanka ama dhaqaalahooda horumariyaan tiknoolajiyadda aqoonta dadka bangiyada ka shaqeeya sidoo kalena ay dhiirigelin u noqoto inay noqdaan international certified bank sidoo kaleetana wadamada ka furtay wadankeena maalgashatay iyagana inay ku dhiiradaan in ay wadamo international maalgelin ku sameeyaan midda labaad waxay tahay fikirkeyga waxaan maleynayaa gudoomiye cabdirasaaq inuu ka dhawaajiyay in dadka soomaalida badanaa aysan aaminin ama dhibaato ay u arkaan in dad ajaanib ay wadankeena maalgashtaan laakiin ani fikir ahaanteeda waxay la tahay iyo inta aan magaalada ku arkay in soomaalida ay aada u aaminsan yihiin dadka ajaanibta ah iyagoo aanan fiirinaynin badanaa aqoontooda ama wax kale aanan ka fiirinayn kaliya inay ajaanib yihiin ku aamina tusaale ahaan wadanka waxaa ka furan shirkado badan oo ka shaqeeya auditka laakiin hay-adaha badan oo wadanka ku yaala ama ganacsiya ha ahaadaan ama waxyaabo kale ha qabtaan kuma aaminaan shirkad local ah inay u sameyso audit inay u sameyso kale iyagoo always doorbidaya inay ajaanib keensadaan ha ugu dhawaato ama Kenya ha ka keenaan ama meel kale ha ka keenaan always waxay doorbidaan dad ajaaniba inay u sameeyaan amaasantiin waxaan weydiinayaa CEO Cabdirasaaq waxaan hadda jira 13 bank oo ka diiwaan gashan Central Bank of Somalia wadankeena GDP-giisuna marka la buunbuuniyo 7 bilyan ayaa lagu qiyaasaa wadanka dariska aan ahay oo Kenya GDP-giisu waa almost 100 bilyan buu ku dhow yahay ayuu marayaa Kenya waxaa ka furan 44 bank oo 13 ay yihiin foreign ay yihiin ayaa ka furan haddii GDP-gooda loo qaybiyo 2.5 ayaa ku soo aadaysa beer bank innagana 0.5 iyo wax ka yar ayuu noqonayaa marka ma tahay xilli ku saxan in ay bangiyadu ay intay fakaraan ayagu midoobaan markaad la tartamaysid banki 9 bilyan asad haysta adigoo 1 bilyan 13 kiino isku haysataan ma tahay xilligii markaas intii la midoobo la iskaashan lahaa oo dadkaas dibadda inuu ka imaanaya fursad ma inoo yihiin aynu ku midoobno su'aasha saddexaad Professor Yaxye waxaynu ognahay Soomaali waa dad resilient ah sida la sheego duruufihii adkaa oo dadka ka dhacay private sector-kii iyo dadkii iyadoo aan dawladda jirin waa la wanaagsanaaday oo sidii la moodayay lama noqon dad resilient baan nahay challenges-ka imaanaya oo foreign banks ay keenayaan ma sababi kartaa inaynu resiliency-gii soo kordhino oo ay inoo noqoto waxa weeye ushii inoo faa'iideyn lahayd oo aynu horumarkaas ku gaari lahayn intaasaan kusoo koobi lahaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم دو waxba isku naxin adiga waa ninka aan u dhaarsanahay rabnaa la hadal marka iska diyaar garow horta waxaan soo dhaweynaa doodan aad qiimaha u badan anoo ku hadlaya magaca bangiyada Soomaaliyeed boorka SBA ka tirsan waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka hadlo anaga horta waxaan diyaar u nahay inaan cid kasta la tartano iska dhaaf laba bangi 10 bangi ha timaado diyaarana laakiin adinka laga rabaa inaad noo sameysaan meeshii aan ku tartami lahayn laakiin tartama kaliya ma shaqeynayso wadan aan national ID lahayn oo bangiga ajnabiga lagu soo fasaxa xagee shaqadan loo wadaa national ID malid bangiyada ku gudaha korila Soomaaliya waxa ID haysta waxa lagu qiyaasaa number aad u yar bangiyada ba korila marka bangiga ajnabiga iyo national ID na wadan kama jiro sidii loo ilaalin lahaa waa wax meesha ku jira dawladdu strict kale oo cabsi ah ku jirto ay ka soo bixin hay'adaha dawladda sharciga jir wasaaradda maaliyadda ka soo baxay dhaha hay'adaha dawladda account kama furo karaan bangiyada gudaha ama bangiyada private-ka ayagoo transparency-ga aan laga yaabo inaan uga fiicannaa xataa bangiyada kale bal in access la siiyo inay ka furtaan deposit-kaas la dhigana dadka lagu finance gareeyo wadankay dan iyo dad u tahay corporate law wadankan kama jiro nimankan sharciyada siinayseen see corporate law lagu maamuli lahaa aniga ayaga waa u baahanahay saaciidada dhinacaas ugu baahana waa diyaaranahay inaan u tartano
annaga waxaan isku dayaynaa always inaan international fulfillment buuxino because sharciyada adduunka waa ku qasbannahay. anti money laundering-ka marka oo laga hadlaa waxyaabaha base-ka u ah waxaa ka mid a waxaan dhihi lahaa national ID. sidaa la socoto waddanka ma laha data protection act. data protection act heshiisee loo galaa data protection act mali anagii dowladdeenu ilaahay dartiisaan ku wada shaqeynaa waana isla ogolnahay hadda ilaahay dartiisaan isku aaminay ilaahay dartiisaan ku wada shaqeynaa laakiin data protection act noo dhexeeya ma laha. marka waxaan rabnaa inay dowladdu obstacleska aad gacmaha nooga xirteen oo national ID-ga iyo akawnada inaan la furo karin bangiyada localka iyo bal waxa la iska furo og in laga dhigo aan meesha ku wada tartano sharciyadii nagula kala hagi lahay taxationka iyo data protection actina noola sameeyo. maxaa arrintaas qorshaha ay dowladdu ka leedahay? asalaamu calaykum. magacayga waa maxamed cadow waxaan ka socdaa shirkad loo iris hub oo bangiyadana si gaara ula shaqeyso gaar ahaan waxyaabaha ku saabsan access to finance oo projectyada aan qabano marka bangiyo oo aan si dhow ula shaqeyno sida Premier Bank, IPS, Amal Bank iyo Salaam Somali Bank aa jira. marka waa uga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee noola shaqeeyaan. taas waa taas. sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo SPA oo forum very important ah soo agaasintay. su-aalaha qaarkood oo dhow la weydiiyeyna waxaa isleeyahay xoogaa fair ma aha waxaa rooneed in dad oo ka socdo maybe wasaaradda maaliyadda ama bangiga dhexoo kale in la weydiiyo laakiin he is trying his best. marka waxaan rabaa naftirkay comment aan wataa oo iska kooban asagaana ku kabi doonaa hadduu alla idmo. having said that marka waxaa isleeyahay janji waa laa maxaala waaye oo dhaca sectaro badan oo runtii janjiga ka dhacay. marka waxaan kusoo jeedinaa talo walaalahey oo ka socdo bangiyada gaarka loo leeyahay inay janjigaas isku diyaariyaan. waxaan isleeyahay wave waaye aan la celin karin. taas waa qodob. waxaan isleeyahay si positive waa looga faa'iideysan karaa. tusaalooyin badanna runtii waa la bixiyey qofkii research ka sameeyey oo haddaay si oo comments aad muhiim u ah jeediyey oo aan isleeyahay waa la duubayay oo in la isticmaalo u baahan runtii waa very important arrintaas. dhuubowna wuxuu bixiyey tusaalooyin kooban. hadda haddii loo wadada Kismaayo xamar isku xirto hal dhiso ay ku baxayso $1 billion bangiga ugu weyn Soomaaliya Salaam Somali Bank waa ma bixin karo. marka seel wadadaas loo dhisaa in wax la hormariyana waa la rabaa. dowladdana ma joogi karto gacmaha ma ka xirnaan karto. runtii marka waxaa jira sectors oo finance sector ka weyn oo Soomaaliya ay soo galeen private sector oo security sector uu ka mid yahay. shirkad waaweyn oo security ka shaqeeya waddankan joogo oo siyaabo kala duwan u shaqeeyo hadda xataa sektarada horumarinta ah sida gaaska iyo oilka iyo ka shaqeyn rabo maamulkooda iyo ilaalintooda iyo horumarintooda. marka sectors tiro badan oo adeegyada caafimaadka ay ka mid yihiin aa jiro adeegyada waxbarashada ay ka mid yihiin oo ay soo galeen maxaa la private sectors. marka waxaan isleeyahay sectorka finance-gan waa loo imaanaa. runtii danaan ugu jirto dadka Soomaaliyeed. qofka oo Soomaaliga ah oo $1 iyo wax u dhow qaato inuu lacag hada ma ahane guri ma dhisan karo. dadka adduunka oo asaga camal ah laakiin guriyay leeyihiin oo $800-700 qaato laanu bangiyada waxaa laga yaabaa inay siiyaan loan 20 sano 30 sano inay siiyaan. laakiin inta waxaa lagu siinaa 3 sano haddii u badato oo lagu qaraabo kiilo ama waa 1 sano oo lagu dhoo iska bixi bishii $5,000-6,000 qof awoodana ma laha. marka waxaan isleeyahay dhibaatooyin aad u tiro badan runtii jira. dadkana waa soo badanayaan. ummaddii waa koraysaa. marka dhinacyo badan in wax laga fiiriyo waaye. bangiyada dadaal badan ay suubiyeen horumar badan ay ku tilaabsadeen. horumarka ayagaa kasii faa'iideysan doona. ugu dambeyntii isbitaalka Digfaar oo maxay ahayd oo foreign iyo local investment ah markuu waddanka imaado isbitaalo badan ku daysaday adeega uu bixinayo sidoo uu bixinayo casriga uu yahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed wax ka bartay. markay ugu yartaa marka bangiyada oo foreign-ka imaan doono dadka ku tababaran doona ardayda internship ku diyaarin doonto waxay noqon doonaan dad si sax ah wax u bartay dad meel sax ah ka shaqeeyay maxay ahayd oo waxayna noqon doonaan asad dadka Soomaaliyeed ee helaan. waa markay ugu yartahay marka kaleetana waxaa laga yaabaa dadka inay siyaabo kale uga faa'iidaan. marka comment aad u mahadsantii waan idin mahadsan. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdinuur Cilmi waxaan ahay macaamiisha bangiyada localka ah. marka
hay-ad gooniyo institution aan ka socdo hadda ma jiro. waxaan rabaa saddex horta marka hore intaan su-aalaha ustaad Dubow iyo Cabdirasaaq professorka marka hore inaan mahad celiyo horta ustaad Yaasiin iyo SBA inay arrintan fursad noo siiyeen runtii waa muhiim waay. waxaan rabaa inaan wax yar ka hormariyo markaan debate-kan horta aan dhageysanayo aniga waxaan fiirinayaa waddankanaga dagaaladii taariikhda marka laga soo tago burburka ka bacdi waxa aan ku badbaadnay oo aan ku kufaaxnay oo inta hadda aan haysano horta waa local resources ama ha noqoto financial institutionska ama ha noqoto kuwa waxbarashada wax ay Soomaali leedahay ayaa waxa hadda vibrantiga oo noo muuqdaan haysana horta taas waay. markaan leenahay challenge-ga iyo maaragtay opportunity-ga waxa localka aan haysano wixii badbaadin lahaayna waa inaan ka fikirnaa ayagana opportunity kale sidii loo siin lahaa horta inaan ka fikirayno ayaan isleeyahay meesha ay doodda u socoto. arrinta ku saabsan marka aan rabo ustaad Dubow oo ka socda wasaaradda su-aasheeda waxay tahay wuxuu aad maaragtay u sheegay shuruucda iyo inay tahay inaan laga baqin iyo in free market-ka ay tahay in maaragtay la soo dhaweeyo oo suuqa la geli karo mar walba. marka horta aragtida waxay tahay su-aasheeda aan weydiinaya waxa waaye suuqa horta mar kasta foreign investment saacad walba asagu ku imaan karaa laakiin adigu saacad walba diyaar uma tiina accept garaysid. marka dawladda waxay su-aasha oo xagga dawladda u imaanaysa waxa waaye waa sax suuqu waa furan yahay laakiin mar walbaba waxaa jirta wax la dhahay invisible power suuqa asagoo open competition ayaadan geli karin. shuruucdana waxa waaye way badan tahay laakiin in la fuliyaa ayadana waa capacity iyo dhismo waqti badan ay u baahan tahay. marka dawladda Soomaaliyeed sidee u aragtaa in bangiyada localka oo aan ku bilaabay oo ay national resource aan haysan ay yihiin hantideennii dad badan ay ka shaqeeyaan because markaad fiirinaysid local bankiga nin ganacsadaha oo kaliya suuqa jooga loo macaamilaysa waxaad ka fikiraysaa opportunity-ga dadka Soomaaliyeed oo waxbarta ay siiyeen yacni life-ka nolosha wax uga bedeleen dadka. marka dawladda Soomaaliyeed ma ogtahay haddii la yiraahdo ka soo qaad free market iyo shuruucdana ha compete gareeyaan private sector-ku ma u muuqataa inay challenge ay arki karaan bangiyadan in caqabad badan ay ku imaan karto si Professor Yaxye uu ka dhawaajiyo the dumping policy inay noqoto macnaha they can do inay 10 years khasaaraan laakiin 10 years kale haddana ay sarfo gareebaan. haddii marka taas ay dawladdu arrintaa ma ku baraarugsan tahay haddii ku baraarugsan tahay se ayada dawladda roolkeedu sidee rabtaa inay u capacity gareyso ama shuruucdaas ay dadka private sector-ka bangiyada ugu muhiimsan ay ku ilaaliso taas mid waaye. sorry waxaan maleynayaa bangiyaha hadlaayeen annaga customer-kaan inaan hadalna u baahana. su-aasha kale oo muhiimka waxa waaye isagana Cabdirasaaq aan weydiin maayo banki waxa waaye cabsi badan aad moodaa inay private bankiyada ka muuqato. marka horta cabsidu marna waa fiican tahay marna waa xun tahay. mar hadday ku fail garowdo waad dhimanaysaa marna waa inaad cabsida waxa aad ka cabsanayso waa inaad hagaajisaa. private sector-ka amse bangiyada sidee rabaan inay ku noolaadaan 10 years after suuqan sida dawladdu ay openka market-kan laga fikirayo because ma waxay rabaan inay cabsidan ku sii jiraan mase maxay ka fikirayaan oo waa inaan maqalnaa bangiyada siday u fikirayaan tusaale ahaan oo kale the skill ayaa imaanaya technology ayaa imaanaysa waxaasoo dhan cabsidu xal uma arka. marka waxaan maleynayaa in oo cabsi badan inay xalka u raadinayaan. tan aan rabo Professor Yaxye oo macallinkeyga inaan weydiiyo waxa waaye waxaa ogtihiin heshiisyada waxaan rabaa maadaama uu nin prospective xagga economiga iyo heshiisyada international trade-ka waxaas uu maaragtay dee yaqaano yahay maanta wadamo badan oo Afrikaana ama wadamada oo development samayn lahaa ayaa jiraan laakiin heshiisyo ay galeen 50 sano 100 sano ka hor ayaa gacnaha ka xiraya. marka heshiis inaad gasho waxay ku xiran tahay awooddaada dawladdaada ay leedahay iyo bargaining-kaaga iyo dhaqaalahaaga. marka Professor Yaxye maybe inuu comment naga siin karo sidee heshiisyada dawladda Soomaaliyeed oo aan ognahay awooddeeda yacni ama ha noqoto inay agreement la analyze gareeyo 50 sano hadda ka bacdiya impactigiisa laga yaabo in la arki karo. marka yani dhaqaalaha sidee u saameyn kartaa heshiis inta la galo ama dawladda Soomaaliyeed gasho ay qaadan karto inay saameyn weyn mustaqbalkeena annaga iyo carruurteena ay ku yeelato. waxaan rabaa intaan dhageysanayo dooda professorada waxaan kala dhex baxay nuqle la yiraahdo culays iyo cabsi. culaysna haysta iyo cabsi aan ka baqayno oo nagu soo wajahay. marka waxaan qaadanayaa aniga nuqlada culays oo ahayd culayskana haysta sideen isaga qaadi karnaa. anigu waxaan aaminsanahay qodobka opportunity-ga baan rabaa inaan qodobo ka dul istaago. haddii la yiri waddankeenu waxba ma soo saaro
inaan wax soo degsanana lacagtii aan ku diri lahayn baa xawaaladaheena iyo bangiyadeena ku adag shaqo la-aan baahsanna ka jirto waxaan aaminsanahay inaan foreign bankiska aan waddankeena laga furo inay faa'iido noo tahay kow inaan ka kaashano waxyaabaha anagu dhaqaalaheena waddanka intaan uga qaadna xawaaladaheena iyo bankigeenu finance ay lacagtii bannaanka ugu saarayaan productigana aan gudaha usoo gelinayn in ayagii cilmigii iyo dhaqaalihii anagoo la kaashadayna waddankeena gudaheena aan ka dhaqangelino beerihii warshadihii kalluumaysigii anagoo ka faa'iidaysanayna cilmigooda iyo dhaqaalahooda labadaba waa labo dadkeenu inay dhaqaale ka helayaan inay shaqaale ka helayaan shaqaale la-aan baahsan baa waddankeena ka jirta inay taas ay shaqaale ka helayaan oo dhaqaalihii waddankii ay income fara badan ay yeelanayso knowledge-na laga helayo cilmigii laga helayo three dhaqaalaha faraha badan iyo lacagtan mar walba naga baxaysan inay naga yaraanayso oo dad ayagoo waxa soo saara oo dunida mutual interest naloo arko oo aan ka baxno halka dhinacoo keligeedoo aan ka raranahay intaas waxaan rabay inaan commenty ku darsado agaasimo maxamed laakiin cabsida la muujiyey waxaa waaye sharciyada waxaana u malaynayaa professorka aada uga hadlay kuma laabanayo anoo waqtiga soo kobay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabiil mustafa magacayga waxaa la yidhaha saciid cabdullaahi saciid waxaan ka socdaa shirkadda la talinta ee waayeel consulting laba runtii comment iyo su-aal deg dega ayaan insha allahu tacaala israacin doonaa hal qodob runtii akhyaartu way isku waafaqeen oo bangiyadan hore jiray inay yihiin hanti qaran oo maaragtay ay soo tabceen qaadhaanka aynu ka qaadno bangiyo aynu leenahay inay yihiin waynu runtii isku waafaqsannahay ilaalintooda iyo maaragtay tixgelintooda su-aasha raacaysa laakiin waxa weeye runtii oo cabdirasaaq iyo yaasiini aan weydiinayaa hanti bay u baahantay in lagu ilaaliyo hadda waxa laga dhawaajiyay aqoon bay u baahantay in lagu ilaaliyo shuruuc bay u baahantay in lagu ilaaliyo ma huraysaan oo ma u diyaarsan tihiin oo wax ma idinka meel yaallaan oo qorshe ma idinka meel yaallaa hantidaas sidii loo kobcin lahaa ma leedihiin strategic plan 5 sano ah oo lagu dhisi lahaa waayo hadda kelidii way soo dhammaatay iyo maaragtay in maaragtay hal loo ordo waxaa la sameeyey platformkan associationka maxaa ka diyaarsan ee maaliyad ah ee qorshe ah ee aqoon ah runtii in lagu ilaaliyo maaragtay haddii beed maayo hantida lagu soo tabcay ee runtii xaaladaha fara badan la soo mariyey taas waa qodobka koowaad qodobka labaad runtii ustaad dhuubow oo maaragtay isaga laftiisa hadda Uganda aanu ka wada nimi hay'adiisu shaqo badan qabatay harmonization-ka uu professor Yaxya ka warramayay in la harmonize gareeyo shuruucdii lagu ilaalin lahaa runtii qaybaha private sector-ka maxaa inooga meel yaala macnaheedu qolaba wax bay haysaa waxa laga yaabaa aqoon-yahankii baa jooga ganacsatadii baa joogta dawladdii baynu haysanaa isku duwidda resourceska iyo runtii maaragtay isku hagaajinta lafteeda maxaa runtii inooga meel yaala waa qodobka runtii labaad qodobka saddexaad waxaan ku soo celinayaa isla haddana cabdirasaaq iyo yaasiin iyo sector-ka hadda qaabkii loo wadayay maaragtay haddii beed maayo maalin dagaalka ahaa hadda waa laga soo baxaya shirkii runtii Uganda madaxweynaha laftiisu ustaad dhuubow iyo waa wada joognay yaasiin wuxuu ka sheegay in waddanku uu furmi doono oo ay iman doonaan shirkado badan iyo bangiyo badan inay runtii codsiyo badan yaalaan miisaska ayaa runtii uu ka dhawaajiyey idinka inaad aqoontii diversify garaysaan oo daraasada aad maalgelisaan oo maxaa idinka meel yaala marka hadda waxaan xusuustaa 3 sano ka hor qolo Ingiriis ah hargeysa noogu yimi oo investment venture capitalist ah oo raba inay runtii maalgashi sameeyaan waxayna weydiiyeen 3 sector oo aanan qof Soomaaliya ka maqal in daraasad loogu sameeyo quotation baa loo diray xataa negotiation nagala may gelin lacagtii ay bixin lahaayeen hal mar bay lacagtii akaan ku shubeen khubaraan ugu dirnay 3 sector ba daraasadoodii baan u diyaarinay laba ka mid ah hadda way infasgareysteen oo way dhaqaajiyeen in aqoon ganacsadii Soomaalidu ay heerka u gudubto oo ay sectoriskii hore la sameeyay intay ka gudubto ay meelo cusub ay runtii oo darasto hantida ay u baahan tahay ay ku bixiso waayo la iska heli maayo runtii qofku wax qaaliya markuu rabo oo qiimo leh waxay u baahan tahay wax qiimo leh inuu huro taana runtii maxay idinka diyaar saddexdaas runtii qodob ayaan ku soo gabagabayn lahaa هذه حاجة أمل وحنو مالنا واحد بدنا أديك أمل أنت تجي وكفر أحسن أفر سؤالات مهمة ويديي مد كلي هري صحافة يكومينيكيشن كان أبرتي مرة بنا الدبلوم هذا النقطة حنو مالنا سؤال شكوى ما كان جوابي كرو ودنك تركيا يمد مصر مده كرنه هو بينوسو دو فيجرن هذا نوسو دو فيان bangiyo taas waa ka cudur daarna tan kale to ah weakness kuma wuxuu ka jiraa regulatorka mise wuxuu ka jiraa
bangiyada commercialka ah anu waxaan qabaa labadaba waa ka jiraa horumar ahaan marka la yiraahdo waxaa horumarsan bangiyada commercialka regulatorygii baa yara gaabinayo mararka qaarkood waxaa moodaa in bangiyadii ay weeg yihiin oo regulatorkii uu fiican yahay ani marka waxaan qabaa waxaa la yiraahdaa chicken iyo egg yaa soo horbaxay haddii lagu doodo waa doodaan weligeed dhammaan bangiyada Soomaaliyeed lacagaha ay isku dareen oo ay regulatorka ku garab istaageen oo shuruucda ka maqan oo businesskooda iyo maalgashigooda saamaxayo ee haddaba maqan inay yiraahdeen annaga maalgelinayna dowladay sharciyadan A iyo B iyo C baa naga maqan waxaan u maleynayaa garab istaagaas weli waa ka maqan yahay bangiyada Soomaaliya waxaa kaloo ka maqan dowladda iyo bangiyadaba shuruucdeena quraanka markii la baranayo horujeed iyo naqtiin bay lahaan jireen shuruucdeena waa la ansixiyaa maahine inta laga daba tago war qodobka baa naga qaldamay amendment ha lagu sameeyo lama yiraahdo SBA waxaan u maleynayaa advocacy qaybteeda inay xoog saarto lawyero commercial lawga iyo finance ku takhasusay bal shuruucdan intay akhriyaan qaab cilmiyeysan hay-adaha dowladda ay qusaysay in loo geeyo oo la yiraahdo qodobkan A iyo B iyo C buu noo dhibayaa dhaqaaluhu taabanaya hanala ka bedelo waxaana soo jeedinaynaa optionkan in lagu bedelo 2012 ilaa yoomina hada waxaan u maleynayaa baarlamaanka Soomaaliya amendment bill la geeyay 10 ma dhama amendment bill-yada la geenayo intooda badan miisaaniyada la amend gareynayo iyo sharci la rabo qof in laga sameeyo sida bangiga dhexe markii la rabay in loo magacaabo qof ajnabi ah ma ahayn wax private sector ka yimid oo dhahayo qodobkaana caqabad nagu haya hana ka bedelo sidaana loo bedelo taas horta waxaan u maleynayaa dhanka SBA gaabis ka jira iyo bangiyada regulatorku hadduu xoogan yahay cabsida laga qabo regulator xoogeystay markaan anagu dhanka dowladda joognana waxaan haysto private sector xoogeystay iyo dowladdii oo daciif ah adinkuna meel gaari maysaan annaguna meel gaari mayno modelka ugu fiican marka waxa weeye laba wada xoogan in la helo halku meesha uu ku jiraa waxay tahay regulator xoogan oo logiga aad ka hadlaysa ku fahmi kara berito bangigana culays igu haya ajnabiga markaad tirahdana qodobo u cugsan karo kaa celin karo inaad maanta samaysato waxaa qaab darro ah in 5 sano 10 sano kadib bangiyadeennu intay qaarkood competition adag galaan ku badbaadi waayaan regulatorkii caawi lahayna uu hortood dhintay ama uu ka daciifsan yahay xoogaa waxaan u maleynayaa arrintaas in ay ila fahanteen arrinta airlineska iyo bangiyada waa taan sheego marketkan waa supply iyo driven qofka Soomaaliga ama ajnabiga sectorka uu maal gashanayna visibility ku sameeyay asaga ayaa ogaaday waxaan inay profitable u yihiin hadduu ku qasaarana mas'uuliyad asaas kale oo waxaan waxa uu state owned company ma airlineska dadkii maal gashtay fundamental structure ka haystay iyagoonan xallinin oo dhan dowladeedna ka xallin dhan marketna aan ka xallinin baa lagu ordoo la maal gashtay waddan Soomaaliya la yiraahdo oo geeska Afrika ku yaala oo aan gaas soo saaranin oo gaaskiisa lagu keeno maraakiib yar yar oo dowladda Soomaaliya wadamada gaaska soo saarto carbeed aysan long term supply agreement aysan la lahayn qiimaha hadduu kaco uusan annaga nagu kaco mar walba dowladaha kale oo nala tartamayana qiimaha uusan ku kicin ani waxaan isleeyahay visibility la-aan qofkii galay sector wixii faa'iido iyo khasaare uu ka helay asaga unbaa ku qoolan bangiyadana waxaan u maleynayaa bangiyo maalgashi sameeyey dowladdan Soomaaliyana aniga inta aan ka aaminsan oo ka arkay bangi Soomaaliyeed ama ganacsi Soomaaliyeed sida lagu kori karo oo lagu xoojin karo waa u taagan tahay laakiin dhanka doorashada markii la galay 51 qof la isku doortay 5 sano kadib laga dhigay 101 qof 5 sano kadib haddana laga dhigi doono 150 horumarka aan ka sameynayna doorashada numberkeeda inaan kordhino mid lamida miyaan ka sameynayna bangiyada inay xoogeystaan oo 60 sano ay ku qaadata bangiyada inay xoogeystaan ilaa horumarka dhaqaalihiisa ku xiran dowladdu ma sugi karto logicna maaha in la sugo bangiyada commercialka inay 50 sano qaataan inay xoogeystaan horumarkii guud oo dowladuna ama dalku uu ku xirnaado 50 sano intaasaan uga baxaa su-aasha ah Islamic finance iyo conventional bank walaalkeeda ka jawaabay Islamic finance lowgii SBA iyo bangiyada intay isku tagaan ma hormariyeen anigu intaan ka ogahay bangiyada hadda yimid labaduba waxay keeneen garabkooda Islamic banking ah dowlad Soomaaliyeed oo islaam ah nahay ma ku dhacno
in nidaam ribowi ah in lagu soo kordhiyo bangiyadeena islaamiga ah oo ay la tartamaan oo conventionalkii uga adkaadaan annagana aan ku fiirsano ma dhici karto. taas marka waxaan isleeyahay aniga mar walba dowladda Soomaaliya ha u maleynina inay idinka caqli badan tahay ama idinka aragti dheerta idinka ka caqli badan kana aragti dheer inaad u keentaan wax qaldan oo qoraal iyo xalkii lagu sixilaa miiska u keentaan waa laga yaabaa musuqmaasuq iyo madax la raadiye iyo telefoon la iska qabo waa in waqti loo maro laakiin waxaan hubaa qof mas'uul Soomaaliyeed ah haddii xal aad u keenta dhib private sector hayo kabahu gashana waana xalinaa. walaalkay su-aasha labaad oo ahayd timekii waddanka la maalgashalaya hadda ma tahay ana waxaan qabaa inay shalay ahayd inay daraad ahayd maanta maba ahaba waddankan maalgashi u baahan yahay miisaaniyadana la siiyo iyo midda aan soo saarano $1 bilyan ma dhama waddan raba inuu korane oo 30 sano soo recover gareeyo burburkii uu galay $1 bilyan iyo $10 bilyan ma ku kori karo. waxaan u baahannahay private investment timaado lagu horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha ganacsade maanta awoodo inuu horumariyo kaabe dhaqaale isla markaasna uu ka faa'iido uu business maal gashto ma dhici karto. dekada ugu yar oo maanta haddii waa la dhisaa la yidhahdo $1 bilyan ay u baahan tahay bangiyadana depositka yaalla haddii la isku wada daro $1 bilyan ma dhama ma ku maalgelin karnaa mashaariic maalgashi oo kaabayaal dhaqaale ah oo waaweyn bangiyadana localka ma awoodaan. su-aalo badan waaye doodeedu waa tii aan sheego waa chicken iyo egg yaa soo hormaray. daryeel bank yarka uu hadlayo waa soo koobay hadalka waa cabsi iyo culayska wuxuu haystaa wuxuu ka jiraa SBA iyo private sectorka cabsidana waxaa laga qabaa waa dowladda taas waa ka hadlay. dowladda aad maanta dhisato oo aad xoojiso oo shuruucdeeda aad u dhammaystirto oo aad accountable ka dhigto oo aad miidiyaha support garayso oo tooshashka lagu ifiyo baa biri maalinka adiga aad soo dhacdana ku badbaadin doonto. marka cabsida aniga waxaan isleeyahay dowladdan la leeyahay halkaasii fadhisaa waan ka cabsanaynaa waana tabar yar tahay waana ka caqli badan tihiin waana ka cilmi badan tihiin awooddiina ku dara si berrito markaa leecdaan ay idiin soo jiido. su-aasha ugu dambeyso ee regulationka oo walaalkii burhaan ka hadlay aniga waxaan qabaa SBA iyo bangiyada intay isku noqdaan inay sameeyaan legal gap analysis wax la yiraahdo financial sectorka maxaa shuruucaha ka maqan oo maanta aanba jirin maxaa shuruuc ah oo na dhibaayo oo maanta noo degsan oo sharciga waddanka ah oo u baahan in la bedelo maxaa shuruuca oo maanta noo jiro oo laga maarmaa qarnigii 21aad baan ku jirnaaye shuruuc noo taalo oo communism iyo socialism ku luga leh ma iska tuuri karnaa iyaga dhanba oo kuwa cusub oo maanta la jaan qaadi kara ma qoran karna. marka aniga qaybta outreachka ama dowladda la xiriirka SBA waxaan ku talinayaa in shuruucdaas iyo looyarada loo xoojiyo tala kasta oo maangal ah oo dhib haysto bangiyada iyo xalkii lagu xalin lahaa oo ay soo jeedisay SBA iyo bangiyada Soomaaliyeed ma u maleynayo dowladda Soomaaliyeed inay ka gaabinayso inay xaliso aad maasantiin ku socda kuwa kale hadda xagee ku sii badanayaan maasantiin ustaad Abdullaahi arrimaha ka hadasha aniga waxaan dhahaa sida ganacsiga tafaariiq iyo jumlo loo dhaho arrimo tafaariiqa ka hadashay sabax waana waxa aan lahaa sharciyadan hadda aad tiriso national ID iyo corporate law iyo data protection iyo waa waxa kaliya hadda la arkaye kuwa aan la arkaynin oo time bomb ka ka badan. marka inaad SBA qayb legal outreach samaysa oo dowladda ka saacida sida aan sheegay report weyn oo intaanoo sharci baan na dhibayso intaanoo sharci baan naga maqan intaanoo sharci baan muhiim ahayn oo in la baabi'iyo u baahan inuu adinka idinka yimaado iyo amendmentskiisa taas waxaan isleeyahay waa wax oo in aan si jumla inaan u galnaa u baahannahay boqolaal waaye artikalada idin dhibaayo kumanaanay gaarayaan waddankan waa waddan shuuciyad ka soo baxay socialist ka soo baxay dagaal sokeeye ka soo baxay shuruucda mid walba duruuftaasaa lagu qoray duruufta maanta aan taagana kuwa reflect gareynaa in adinku aad u advocate gareysaan horta waa qabaa. su-aashaas intaasaan uga baxaa. maxamed cabdi waa mahadsan yahay waa garab baa isisay waa maanta dhan waa liigu socday. siraacad bank wadaad baa wuxuu weydiiyey maxaan ka helaynaa annagu maxaanse ku bedelanay maanta haddii la hayo bangi Soomaaliyeed oo raba inuu ka furto account inuu ka furto bangi waddanka Turkiga waxaan haysanaa wax la yiraahdo reciprocity law oo haddii dahabshiil Salaam Bank My Bank Premier Bank ay yiraahdaan maanta waxaan rabnaa inaan ka furano waddanka Turkiga asoo shuruudahaas buuxinayo annaga waxa ugu horeeyaan qorayna warqad waa aan leenahay si isdhaafsi loo helo
ilaa bangiga inta ka furateena bangi waa in xagga laga furaa bangiyadii aaw la geyn lahaa meeshaas ma haysaan taas waa waxay kusoo laabanaysaa bangiyadii haddii kale heshiisyadu waxay noqonaya heshiisyo unilateral ah oo hal wadan uu booshgareeyo wadanka kalena uu iska qaatay wadanka turkiga iyo kuwa masar iyo kuwo kaloo imaan doonana waxaan isleeyahay political iyo diplomatic waxay leeyihiin privilege oo qofkii de inta malaayiin dollar kaa siiyey in markuu ganacsi u yimaado aada u fududaysana waa wax iska fudud waxaan marka qabaa aniga in iskaashiga private sectorka gaar ahaan s p a iyo bangiyada iyo dhammaan hay-adaha dowladda inaad buuxisaan keliya maaha iskaashiga ah bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda shuruucdan maadaama ay yihiin shuruuc oo wadamo hay-ado badan oo dowladeed taabanayo inaad iskaashiga dowladda aada kor u qaadaan shuruucdan sideedaba inta hadda aniga aan ka ogahay dowladda soomaaliya 10kii sano lasoo dhaafay sharciga ugu yaroo la sameeyey wuxuu ku kacay 150 kun oo dollar waxaa bilowday aan u malaynayo ilaahayna ka rajaynayo inuu gabgabo marayo in la ganacsiyeeyo sharci samaynta sharci sector uu leeyahay oo qof lawyer uu qoray oo consultationka u baahnaa la mariyey inuu ku kaco lacag 5 kun oo dollar ka badan waa immoral sharciga noo adeegi lahaa oo dowlad iyo private sector kale celin lahaa oo growthkiina uu ku xirnaa haddii nin siyaasi ah uu yiraahdo waxaan la aadayaa bangi adduun ama hay-ado kaleeto oo waxaan ka rabaa consultation inaan gobolada soo mara 2 milyan oo dollar oo inaan hebel la kulmo waxaan u baahanahay qadafansiya inaan sameeyo waxaan u baahanahay inaan dhinno qarashka shuruucda aan ku sameyno nooga baxo haddii adinka private sectorka aad noo heli kartaan saacidaad aad naga saacidaysaan wasiir aad siisaan lacag oo tigid aad siisaan oo business class aad ka bixisaan oo waxaad rabtaan aad ka saxiixataan culture soconayo maaha dowladaha ama hay-adaha in laga saaciido waxyaabo soo noqnoqonayo oo qarashaadana ma aha wax sustainable maaha waxa wadanka u harayo oo aan rabno inaan ka saacidno ganacsigeenana faa'iidadiisa ay ku jirto waa shuruucda iyo siyaasadaha iyo studieska uu ka hadlayo walaalkay waayeel consultant inaan miiska soo saarno wasiirkan waa la bedeli karaa agaasimahan guud meesha waa ka tagaa laakiin sharcigan shelfka kuu saaran muddo dheer uu kula noolaanaa waana midka biri aad rabta inaad qodobkii ka xumaadaba aad sii bedelato waxaa keliya oon la bedelaynin oo adduunkan yaallo waa kitaabka qur-aanka ah inta kaleeto duruufta lagu qoray mar alle markay isbedesho waa in amendmentiguna isla bedelaa marka waa ku dheeraaday waxaan rabay walaalaha inaan fasax weydiistana waa rabay time baa hayo 3 qodob waxaan rabaa dardaaran ah ama tala bixina inaan kusoo gunaanido oo aan runtii bangiyada u jeedinayo iyo associationka tan koowaad waxa weeye bangiyada dadka ka shaqeeyo oo Soomaaliyeed qof walba wadan ajaanib ah buu wax ku soo bartay curriculumka ay wax ku soo barteen ama mideysna fahanka xisaabaadka iyo xiritaankiisa iyo modelka ay u marayaan iyo haddii ay noqon lahayd forecasting iyo macroeconomic analysis iyo waa lagu kala duwan yahay qaarna commonwealth ka yimaadeen qaar waxay ka yimaadeen wadamo dictator ah qaar communist ay ka yimaadeen waxaan ku baaqaa iskuulka la yiraahdo Somali Institute of Monetary Studies inaad gacan weyn ka siisaan dowladda sidii loo asaasi lahaa qaasatan bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda ma aqaano cid uu hoos tagi doono laakiin institute-kaas oo bangiyadan 14 iyo kuwa ka badan oo imaan doonaba dadkii u shaqayn lahaa in gudaha lagu tababaro oo tababarada casriga ah oo imaanaya mar walba loo cusboonaysiiyo waa wax adinka idii fiican dowladnimadana u fiican taas waa talada labaad waxay tahay SBA inaad qaybtaas aan ku celcelinayay dowlad la macaamilka iyo qaybta shuruucda iyo siyaasadaha sidii ay u kaalmeyn lahaydeen inaad u dhabar adeegtaan tan saddexaad waxa weeye bangiyadu maadaama ay bangiyo cusub imaanayaan annaga maxaa noo diiday bangiyadeenu inay bangiyo ajaaniba qayb ka yeeshaan oo aan control stake ahayn oo bangi maadaama laga yaabo inay ciilayso capital bangi weyn oo gaamuray haddii uu siiyo 20% oo uu ka qaato lacag ciidan ka badan oo isku hormarin karo annagu sideenaba inaan waxaana hoosguntiga hoostiisa aan gashanno naloo imaamaayana aan idhaahdo adduunkiina globalization u noqdo haddana digital banking loo socdo oo xuduudihii wadamada iyo regulationka lagu yaaban yahay waxaan qabaa bangiyada Soomaaliyeed inay cabsida iska dhaafaan oo maadaama ay difaac badan ku jireen inay weerar galaan oo ay gobolkan u baxaan adduunka kalena ay maal gashtaan sidoo kalena bangiyada weerarka laftirkooda inaysan 100% maal gashanin wax badan loo qaban karaa in laftirkooda bangiyada la maal gashto
qodobka ugu dambeeyana waxaa waaye driverska ama kobaca waxyaabaha hadda oo kordhinaya 50 sano soo socota adduunka dhan oo aan ka hadlayo climate change-ga iyo technology-ga iyo SME-ga ah in bangiyadu ay xoogga saaraan. ugu dambeyn bangiyadu waxa ay sameeyaan oo in deposit la qaado iyo in qof waxa guri loo maalgeliyo iyo gaari loo maalgeliyo wax iska basic ah. bangiyadu specialization ha kala yeeshaan. bangigii ku fiican agriculture-ka ha aado, kii business-ka ku fiican ha aado, kii ku fiican lacag in la diro kaliya oo lubkiisa uu yahay ha aado. xoogaa diversification-kaasna in bangiyadu ay kala yeeshaan. iyaga tartankoodana waa yareynaysaa, tartanka adduunka in la galayaana waa u sahlaysaa. bangiyada imaanaya waxa ay ka fiirinayaan waxa waaye lacagta 2 bilyan oo dollar hon wax ku soo iibsano iyo 2 bilyan oo adduunka uu nasiyo sidii ay ku keeni lahaayeen ama ay ku bixi lahaayeen. waa trade mentality-gooda. bangiyada Soomaaliyeed waxaa la joogaa xilligii ay xoogga saari lahaayeen wax soo saarka gudaha, warshadaha yaryar iyo warshadaha waaweyn ee waddanka wax ku soo kordhinayo shaqo abuur iyo in la yareeyo waxyaabaha aan soo dhoofinayno. intaasaan tala ahaan iyo dardaaran ahaan idinka tagayaa. waan idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. عليكم السلام. خيارتا أنا سؤال نور اللي ويدي gabadheeda waxay ahayd su-aasheedu wake up call ma loo arki karaa? haa, horaan u sheegay, waana insha allahu ku talagelaynaa, waana tartamaynaa. qof kale oo asxaabta ka mid a aan u malaynayo saacadow inuu ahaa wuxuu i weydiiyey su-aal ah 10 sano ka bacdi sidee u noolaanaysaan? 10 sano ka bacdi walaal waa noolaanaynaa, waana weynaanaynaa. weliba saakay aan dooda waxaan ku bilownay 10 sano ka hor sidii aan u ekaynna waa ka fiicannahay, 10 sano kadibna sida hadda aan u egnahay waa ka fiicnaan doonaa. kulleyna insha allah, kulleyna dee ma jirto cid meel iska fadhisa, cid waliba way ku talagelaysaa sidii ay steegeeda uga qaadan lahayd businesska. su-aasha kale waxay ahayd maxay anaga problem noogu tahay in oo foreign banks noo imaadaan aysanna problem ugu ahayn wadamo Kenya iyo Rwanda iyo lamida? Ustaad Cadow su-aashaas weydiiyey. brother, comparison-kaasi sax ma ahan. Kenya iyo anaga in la iskaaga dhinac dhigo waa kaaga ra'yi duwanahay, marnaba sax ma aha. Kenya yani Africa waxay u tahay financial maaragtay serviceska waa wadanka koowaad waaye, number 1. marka dee wadankii koowaad ee adduunka iyo wadankii ugu hooseeyey adduunka, I mean Africa, haddaad tiraahdo waay ayaga isu dhibayn adiga kuu dhibaysaa, aniga walaal waxaan isleeyahay dee way iska caddahay jawaabtu. isku duruuf ma nihiin, isku situationna ma nihiin. yani in la compare gareeyana anigu ma arkay inay sax tahay. meesha ay ka jiisaysana aniga waxaan isleeyahay waa dowladda iyo hay-adaha dowladda weeyaan. reality-ga marka laga hadlo, saaxiibkay Shaakir wuxuu nagu eedeeyay inaan midoobi karin because lacagtii aan hadda isku diri la'nahay. dhaliishaas waa leenahay, obstacles badanaa jira oo dhexdeena ah. yani xaqiiqadaas waa jirtaa, ma inkirayno. laakiin SBA waxyaalaha ay u samaysan tahay waxaa ka mid ah inay waxyaalahaas ay maaragtay ay hagaajiso oo iskaashiga bangiyada dhexdooda maaragtay ay xoojiso. walaalkii Siciid wuxuu weydiiyey su-aal ah waa knowledge-ka iyo research-ka inaad maal gashataan ma u diyaarsan tihiin? yes, haddii aan khaldanayn budgetka SBA waxaa ku jira ay boardka ansixiyeen components oo research iyo development iyo waxaas ka hadlaya. waxaan rajeynayaa insha allah inaad waqtigii ugu fiicnaa ay tahay su-aashaas inaad weydiisaan oo SBA idinka maaragtay aad ka wada hadli kartaan. remarks yaryar waxaa jira aan raba inaan kusii daro. waxaa ugu horeeya waddankeena sida aynu u layacannahay, horta inaynu run isu sheegnaa wanaagsanaya. saynu u layacannahay waxyaalaha ku tusinaya waxaa ka mid ah Ustaad Dhuuba wuxuu ii sheegay few days ka hor, haddii aan qaldana saa sixi doone, dowladda Turkiga iyo dowladda Soomaaliya heshiisyada ay galayaan waxay ka koobnaayeen 4 component ama 4 qaybood. haddii aan sax u fahmay ilaa hadda
componentiga marka laga reebo militariga iyo askaraha iyo waxaas kii dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo wax isdhaafsiga lama saxiixinba dowladda turkiga waa saxiixday baarlamaankeeduna waa ansixiyey dhinaca dowladda soomaaliya lamana saxiixin baarlamaankeena ma ansixin marka waa ujeedaa meesha xoogaa uu gaabku uu ku jiro marka taasna waa jeclaa inaan maaragtay waxaa akhyaarta qaar ku celceliyeen bangiyada ajnabiga ee lama hortaagnaan karo waddanka waa in la isu furaa waa in adduunka u furanaa deenaader waa taasi waa sax waa sax bangiyada ajnabiga waa waddanka waa looga baahan yahay lagamana maarmaayo waddankan si uu u horumaro waa in dhaqaalo badan la keeno oo investment badan uu helo yacni tii hadda ustaacadda uu ka hadlayo kale oo deymaha oo long termkaasi loo bixiyo iyo waxaas oo dhan competitionkaa sahli lahaa okay welcome foreign banks ha soo dhawaadeen laakiin how meesha sartu ka qurunsan tahay waa sidee loo soo dhaweynayaa foreign banks ma isku sii daynaynaa mase waxaynu foreign banksku meelahay nooga fiican yihiin uga faa'iidaysanaynaa innaga oo meeshii annagu aan ku fiicnayn localkeenna ilaashanayna contextigeena annagoo ilaashanayna miyaynu ayagana spaceka ay ku ciyaari karaan siinaynaa mase waynu isku sii daynaynaa 100%. ustaacaddu wuxuu ka dhawaajiyey infrastructure badan oo maalgelin noogu baahanaa jira yes that's true laakiin waxaan ku ashuur garaynayaa ustaacaddow aan I hope inaad nood garaysato baanankaasi way imaanayaan bridge ma dhisi doonaan jidna ma dhisi doonaan anaa intaas ku confirm garaynaya noodkaas meel igu qor and let us talk after 5 years deal ahaydbo intaasaan waxaa kaloo jira sorry qodob akhyaarta qaar ay ka dhawaajiyeenaa jira oo dhahaya technology transfer iyo knowledge transfer iyo it's okay investmentka waa laga helaa knowledge transfer example-kii ustaacaddu was very nice digfair isbitaalladeenu way ka faa'iideen waanu istoosinay wax fiican aan ka faa'iidin taas waa waafaqsanaha aniga inaynu wax ka faa'iidayna dhinaca technology-ga iyo aqoonta iyo inaynu wax ka faa'iidayno absolutely waa maaragtay idinku raacsanahay aada u mahadsantihi akhyaarta asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم سؤال اللي ودي وحاكم ده ترتكان wax faa'iido ma ugu jirtaa localka waxay ku xiran tahay how in la tartamo waa fiican tahay laakiin tartan dano kugu jirto waxaa jiri jiray waxa la yidhaha wadamada dhexdhexaadka oo maqasheen marka cool warka uu jiray oo adduunyada waxay u qaybsaneen wadamo aada shuuci ah kuba iyo Yugoslavia iyo ananka iyo wadamada dhexdhexaadka ku jira laakiin marka dambe waqtiga kacaanka dadka soo gaara waxaa la dhihi jiray positive neutrality dhexdhexaadka wax ku oolka ah af Soomaaliga noogu qoraa jirta dhexdhexaad waa nahay daatay waarsa banihin laakiin dhexdhexaad wax ku ool ah waa dhexdhexaadnimada aniga dano igu jirto tartankaagu waa inuu noqdo tartan positive ah tartan adiga dano kugu jirto laakiin nin oo orod geel dhumar burso jira iyo mid oo lug jiiska daatira tartama macquul ma ah tartan kastoo sameynaysa marka ogolow tartan bangiyada dibadda iyo kuwan waa tartami karaan dheh laakiin tartan wax ku oola waa inuu noqdo adiga dano kugu jirto markaasaa faa'iido ku qabtaa waxaa laga hadlay bangiyada audit banaanka ay dalbadaan audit Soomaaliya ma rabaan fuuda sharciga laga sameyn karaa waxaa la karaa audit kastoo ajnabi ah waa inuu la shaqeeyo audit local ah xataa 20% lacagta ha qaato adigana 80 qaado intuu baraatikada ka qaadanayo laakiin saa u xadido audit kasta waddanka ka shaqeynaya waa in lala mataaneeyo local audit idan waa la sameyn karaa qaar waxay leeyihiin badanaa waxaa diidan tihiin maalgashiga banaanka ma diidanin waxaan leenahay qaab ha loo sameeyo bis su-aasha kale waxay ahayd beeraha iyo kalluumaysiga iyo beeraha lasoo hadal qaaday in la maalgeliyo waa in la yidhaha sameeye aduu hadda beer ma maalgelin lahayd kii lahayaa diidanad why security kamid hadda waxa dhibka jiro haddii iyo marketka hadda ma maalgelin kartid for the reason of security beeraha waa muhim waa la maalgelin lahay kuweena waa maalgelin lahay laakiin securityga muhim ah market macnaheedu maxaa waaye waxaad doonta sooma saari kartid runtaas ku sheego waxaan dhoofinay waa inay moos iyo liin iyo babaay iyo waxaas noqdaan
laakiin galley iyo digir iyo bariis badanaan soo saaraa haddaa tiraa oo waddankayga ka badan dibadda u dhoofinaa bangiga adduunka hore kaa qabsanaa deynti lagu lahayna iska keen maraykanaa ku dhahay waayo wuxuu asigu u baahan yahay waa inaad soo saarto regulation jiray ka mid taha weliba waa inaad adiga soo saarto kenya soo saarto wuxuu asigu u baahan yahay haddii dhexdiina markaas tartanaa imaanaya qiimaha hoos u dhacaya laakiin waxaan aniga u baahanahay adduunkuna u baahan keliya soo saaraa haddaa tiraa ogow culaysaa jiro taas waa indirect waxa lagugu xadidayo ardankayga ha weydiiyey ma jiraan sharciyo oo la saxiixo na xadidayo kuwa africa hadda kahor waa soo qora haddaad aragtay dhowr wadan oo africa dhowr iyo 10 wadan waxaa jira heshiis la yidhaha continuation of colonialism ma samaysan karaan lacag u gaara ilaa loo fasaxo hantida ay leeyihiin lacagtooda iyagu ay leeyihiin 15% keliya oo loo ogolaanaya inay soo dhigtaan waddankooda 85% waxay dhigayaan faras lacagta adigu aad leedahay haddii aada heshiis gelaysid waddan kale anigaa kow ila gelaya shirkadayga haddii shirkadaygu ay ka maarmaan kadib aan kuu xulaa ciddaa la geli lahayd heshiisaas wadamo shardi looga dhigaa jiro oo waaba ku qorantaaba continuation of colonialism anaga hadda heshiiskaas wadamadii gale kuma jirno wadamo diida maaliya ka mid ah sida loo galo awgeedeen iskuuladii la burburiyay isbitaaladii wax alla jidadkii xoolihii beeraha lagu falayo kulli waa la laayay si wadamada kale ay darsi ugu qaataan heshiisyo waa jireen oo la isku gaadi lahaa مثلا heshiiskan authors right xuquuqda qoraaga waqti kacanka ugu dambeysay nin wasiira loo diray waa maqnaay hormuudka kuliyadda sharciga ninka markaas professor Tuuriyana aaday waa diiday inuu saxiix xataa lacag loo ballan qaado waa diiday wuxuu dhahay aniga waddankayga hadday af Soomaali qoreen waxaan u baahanahay buwaagta kale inaan soo tarjumano oon fasax weydiisan haddii aan saxiixno halka buugo physics ama history ama wax ama u baahantay ilaa hadda wadan fresh ah iskuulada silmiskooda haddii aad soo guuriso hal page fasax iyo lacag laga rabaa haddaa isku saxiix waa diiday inuu saxiixa professorkaas hadda weli waa nool yahay waa joogaa waa weydii kartiin hormudu ka ah kuliyadda sharciga jaamacadda ummadda haddii wasiirku joogi lahaa waxaa islaahay waqtigaas hore ka saxiixi lahay hadduuna asiga camal ahaan lahayn qof sharciga yaqiin waa dhici kartaa marka heshiisyo yaroo oo qof loo diray sanadahan dambe oo hore ka saxiixa inay dhici karto dad badan oo akhyaar oo heshiisyo loo diray iska akhriyay oo saameynta uu ku yeelanaa waddanka ogaaday diiday laakiin heshiis weyn oo sida continuation of colonialism wadamo afrikaana laga saxiixa ee maanta lacag ayna samaysan karin ee maanta hantida ay leeyihiin dibadda u taalo ay ku khasban yihiin 85 inay faransa taalo anaka midkaasoo kale weli ma saxiix haddana waxaa ilaahay hanaga najeeyey ku saabsaneed bangiyada inay midoobaan suurtagal ma tahay taas waxaan u malaynayaa jawaabteeda waa iska sahlan tahay waa sahlan tahay waana u malaynayaa waqtiyada hadda soo socda in la arki doono some banks oo midoobeen runtiina waxyaalaha keena in la midoobay ka mid tahay in competitionku xoogeysto inkastoo soomaalida xoogana la ku yaro eedeeyo individually inaan fiifiicannahay laakiin markaan isku tagno oo wax wada qabsiga sida si wadareed inaan wax wada qabsana inaan ku fiicnayn inkastoona lagu eedeeyo haddana jawaabtu waxa waaye ha waa la samayn karaa waxaanan u malaynayaa in waqtiga soo socda wax laga arki doono arrimahaas aad iyo aad umahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم سؤال اللي ودي أنا وأبوكم ندم عن investment كان مالقشة دي بدأ ما هو مالينا إنه فائدة كنا سيد الله استعماله كحرت هذي أدودك ستقرش وفائدة كانوا فائدة وكنا هذه قرش الآن أتفسح حدنا وحكوس على مالقشة ما هنا مبدأ قش فكر قش واحد بدنا كوس على كله أنا أتكلم بالكريس أنت عايز كويك جوابتين أنا مركا bangiyadii laftiina hal dhaliil usoo jeedinaa marka iyadana qaata inta jaamacada joogay tirada jaamacada dhigata gabdhaha u badan aqoontana qaarkood inta badan wiilasha waa ka horeeyeen gabdhahana aadaa loo aamini karaa gabar bangi lacag kala goosata lama hayo la baxsata laakiin ninka baadiuska aadaa geel ama libya aadaa
gabdho badan oo PhD watana waa soo socdaa kuwaan dhaloo PhD wata hadda imaano haya dadka aada casuunteen maanta 100 waa ka badan yihiin oo bangiyada ka socda 3 kaliya gabdho ka ah bangiyada ayaa u diiday gabdhihii marka 3 gabdhood intaa ku jirto oo badankiinuna ka timid hadda mid ay dhahay ardadaadii masterkaa supervisor iyo ahayd jaamacad Malaysia inuu ka baxo umaleeyaa kaas waxaa ka rabtaa yaasiinka ardaydeeda waay war aawe duca qaba gabdhihii kugu galaaskaya aawe bangiyada shaqo looguma ogola miya marka tirada gabdhaha ee bangiyada ka shaqeeya waa ka aqoon badan yihiin haddayna isku mid ahayn waana ka aaminsan yihiin aaminaad badan yihiin hala badiyo intaas ayda ka codsanaa waa mahadsantiin mar kale inaad noo yeerteen maanta saaxiibka midaan ku raacsana accepted iyo approved labay kala tahay sharcigaas waa la aqbalay waa la soo gudbiyey baarlamaanka ansixiyey ma la fuliyo waayo marka ma lagu dhaqmay sharciga arrin jirta waayo marka sharcigaas sharciyo badan aragna oo la soo gudbiyey baarlamaanka laakiin aan hirgelin laba shayna madaxa ku hay waxaan nahay waddan miisaaniyadiisa aan la xirin 5 sano adduunyada waxaa waaye miisaaniyad baarlamaanka waa loo keenay waa approve garayaan sanadku markuu dhammaado miisaaniyadda in la xiraa la rabay lama xirin waxaan nahay waddan aan lahayn local currency shilin soomaalikiisa male wadamada kale oo aan la mucaamilayn oo dhan waxay leeyihiin lacagtooda ah adiga shilin soomaali ma qabtid dhaqaalaha wuxuu ku xirayaa marka lacag dad kale haystaan qiimo ahaan oo marna kici karta marna digi karto haddii doolarka uu si noqdo toosuu kuu saameynaa bolosi kaaga degsanna ma jirto lacagtaas dhibkaas waa jiraa ogaan la-aan kale waa jirtaa oo ah dhaqaalaheynaba warkama haynaba inta badan ayaa horumaraan soo qoraa lagu qabsanayay waxa ugu badan oo soomaaliya laga dhoofiyo sanadka waa dahaba er waa dhici karta marka da waa lagu raacay in dahab laga dhoofiyo waddanka waxaan dhihi jirna xoolaha nool iyo mooska iyo hadda la joogo dahaba ugu badan qiimo ahaan wax waddankeeda laga dhoofiyo warshado dahabaa ku yaal waxa bir lagu baaraya waa la keena waxaa laga yaabaa hay-ada ku shaqalaaba inayna ogeyn iidan tan kale saaxiibka wuxuu ka hadlay eeya xalana joogo nin wasaaradda amniga arka waxaan iri inuu eeyahaasaa jiro intaasoo lacag zaa'id xaddaafaa lagu qaataa war waxaan eeya bakaaro jiifa iyo lambar 4 waana loo tababaraya kana norwayba marka shidaalka loo soo saarayo waxay tiri shidaalkayga iska qaata 10 sano laakiin 10 sano kadib waxaan rabaa dad norway oo loo tababaray warshadaha inay suubiyaan inay soo baaraan inay kadibna iyagu ay la wareegaan shaqadii ninkii maalin hore arkay dhowr eeyaa lagu khasba hadda kuwa meelahan jiifi jiray ah tababar u socdaa ay soomaaliya ama shaqaylaya marka toolooyinka qaar runtii waa la bilaabay marka ninka in la yidhaha 3 sano kadib waxaan kaa rabaa konton eeyo soomaaliya inaad shaqo barto ood u tababarto booliska soomaaliya dhexlaaya raggina waa la tababaraa uu yiri eeyina waa la tababaraa waana ku maasanta ana waa ku maasantahay waa maasantii Professor waa maasantahay thank you very much waxaan u malaynayaa su-aalaha inay intaas ugu soo aadayaan waana mahadsantihiin mar kale aad iyo aad aan ugu mahad celinaa panelka ustaad maxamed duugow cabdirasaaq iyo professor yaxye inputka iyo qiimaha ay ku dareen forumkan waxaan kaloo ka mahad celinaa kasoo qaybgalayaasha iyo sida aad nooga ajiibteen inaad kulankan aad timaadaan oo aad qayb ka noqotaan talooyinka iyo soo jeedinta waxyaabaha laga soo jeediyey shirkana insha allahu tacaala SBA way qaadan doontaa waxaan rajaynaynaa in forumyo ku xiga kuwan aan qabano oo current issueska iyo waxyaabaha taagan looga hadlo su-aalo la weydiiyaa ku jirtay regulatoryga ama dhanka dowladda dadkii maxaa loo gaari waayo loo casuumi waaye ayadana waxaa idiin ballan qaadaynaa insha allahu tacaala mar kasta sectoriska ay quseyso inaan gaarayno keeni doonan insha allahu tacaala inaan su-aalihii daaragtay u quseeya aan weydiino dhanka kale waxaa jiri doona sessiono ama forumyo mar dhow aan qaban doono oo aan uga hadli doono dad badan waxaa ka guuxaya example ganacsatada ee ku saabsan bangiyada iyo tacaamulkooda iyo shaqooyinka dadweynaha la gaarsiiyo iyo meelaha gaabiska ka jiraan iyo waxyaabihii aan u baahannahay inaan maqalno xataa inaan improvement ku sameyno insha allahu tacaala waxaa kaloo jirta in aan
xoogga saari doono istaraatiijiyadda cusub ee SBA in la sameeyo researches la sameeyo oo la soo saaro maxaa la yidhahdaa daraasaad wax ku ool ah oo wax ka qaban kara baahiyada taagan ee dhanka financialka iyo other sectorska ba insha allahu tacaala intaasna waa idiin ballan qaadeynaa marka intaasaan kusoo gabagabaysanaynaa kulankeenii forumkeenii mar kale waa ka mahad celinaa waqtiga aan ka qaadanay tiimka panelka ah aad iyo aad aa umahadsantihiin jazaakum allahu khayran intaasaan kusoo gabagabaynaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu